2 3 nooca marka askarta waa nooc dhiig ku naax iyagu waxay boobaan hantida waddanka waxay gacanta ku hayaan hadba cidda gacan yaraha u ee jigjiga u qaabilsan ama kan hadda jooga ha noqdo ama kuwii hore ha noqdaan waxay mar walba ku qahraan inay dhiibaan hanti fara badan way ku khasban yihiin inay bixiyaan in mushaaharaadka qaar laga jaro canshuuraadka lala wareego askartaasina ay cunto ribood dhala rogon oo aan dhab ahaynna ay siiyaan tariska ka sarreeya qolada sidaa ahee marka militariga in badan bay ogaadanya ka dagaalamayeen dagaalka lagu qaaday ee kula dirirayna wuxuu ku bilowday nooca maaragtay xabal casaabada ama guriilaha nooca loo yaqaano dagaalka dhuumaalaysiga ee ku dhufoo ka dhaqaaqa ku bilowday waxaan badnayna wuxuu isu rogay nooc xoog leh oo ah qabso burburi furo deedna halkaa kasii wada hawshaaba waxaa dhacda marka in la qabto degmooyin cadowgu ku xoog badan yahay oo fara badan degmooyinka in badan oo kamida waad ogtihiin waa arrin laga socdo waxaanse ka xusi karaa dhagax madow gunagada iyo dhagax madow dannood haarcad sagag dhuxun garbo boorcaano iyo wixii lamid ah oo degmooyin kaleeta marka degmooyinka ciidanku cid buu ku lahaa cadowgu intaan lagu duulo oo ciidamadeenu ku duulaan yaa waxaa sahlanaan in la qabto iska caabintooda xilliga weerarka ee ciidankeenu qaadana waa mid hooseysa waana halka maadayn ku tuumayna inay iska caabin samayn karaan maadaama oo aynan ay haysteen iyagu wax sahli kara inay iscaabiyaan oo ama qalab waaweyna ama dhulkoo intii la dhiso si hoosoo godad dheer ah loo galo cadowga sidaa ahaa waxaa kale oo lagu jebiyey in lug badan cadowgooda ay geliyeen oo odhanayaan lugeeya dhulkaa ka dagaalama marka dhul aynan garanaynin cimiladiisa goobta biyaha iyo goobta kale aynan kala garanaynin in markaa ay ka lugeeyaan xilli ay daaleen ay oomaan inay markaa dhibaato dagaal ay galaan oo ciidankaas uu nooraal jabay kolkii dambena wuxuu diiday dagaalka halkaa markay arrini marayso waxay cadowgu go-aamiyeen bal in la helo dad calooshooda u shaqaysta naxariistana ka fog lacagna la siiyo af soomaaligana ku hadlo markaasaa la aasaasay kooxda tabarta yar ee la yidhaahdo hawaarin muddo 2 sano gudahooda iyo waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq aan awood badnayn kadibna dagaallo waaweyn baa dhacay dagaalladaas waaweynaa waxaan iyagana ka xusi dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaahdo anano keliwaa ama farmadow agteeda keliwaa waa meel magaca la dhaho keliwaa la yidhaahdo dagaal ka dhacay waxaa kamida beri weyneley waxaa kamida ceel weyne way badan yihiin dagaalada iyagii markay qabsadeen way ku hoobteen way ku adkaatay kuwii af soomaaliga ku hadlayay ee welibana filahayay inay yihiin kuwa waddanka u dhashay cadowguna uu abaabulay dhulkana aqoon lahaa in ay sii wadaan hawsha ay ku adkaatay baxsi bay sameeyeen isdhiibid bay sameeyeen ay soo keen dhiibaan baaqada jabhadda soo saartay baa jira oo lagu dhajiyay magaalooyinka kuwaana hadda way fashilmeen xilligan xaaliga saamayn sibay shacabka ugu leeyihiin oo waxay kaga leeyihiin dhanka dhibidda iyo cabsigelinta laakiin saamayn siyaasi ah oo shacabku inuu dadkoodii yahay ama siyaasadoodii yahay ay ka aaminsan yihiin oo ugu leeyihiin taasi ma jirto saasayna dhab ku tahay waxaa kale oo xusidda mudan oo qodobka la falgala in ay xaroodeen afraad kooban oo 2 magac wata qola waxay wadatay magaca Soomaali galbeed iyagoo ahaa wax yaroo baaqi ka ahaa ururkii burburay al-Ittixaad ee ku milmay Soomaaliya kolkii dambena magacyada badan gudaha Soomaaliya kula baxay iyo afraad jabhadda laga ruqseeyey oo iyagana magaca oo wanaag wata iyo kuwa sidooda u daalay intaas bay ahayd inta dadka dhalooyinka intii laga muujiyo cadowga hab propaganda oo isticmaalay intaasna waxa weeye waa xagga ciidanka cadowga iyo qorshayaashiisii dhanka dawlad ku sheegta kadib waqtigii sanaawi meeshii waxaa yimid
dad yaryar oo isagoo kolkii hore uu rabay inuu guruubka duqeydaha ku jebiyo kuwaasuu qowmiyada ka soo ururiyey iyaga laftooduna damaaci siyaasiyad ah. qolada waxaa ka mid ah Hayle Mariam Desalegn oo dadkeenu magaciisa intay garan waayeen Hayle Dhasla ay yidhaahdaan. Desalegn wuxuu ka dhashay qolada la dhaho Waleytada reer Koonfureed 9 qowmiyadood oo isku af iyo isku jinsi ahayn oo isbahaystay ayuu isku dayayaa inuu chairman u noqdo sidaana kula loo saddexda group ee kaleeto oo kala ah Oromiya, Axmaar iyo Tigray. markastoo ay isugu yimaadaan shir waxaad moodaa miisaanku inuu inta kaleeto u badanayo walow qaar kuwa ka mid ah oo hadda Hayle Dhasla isku dayayo inuu la wareego ama ma aha Tigrayga laftooduna Hayle Dhasla intay jiitaan oo intiisa reer Koonfureedka jiitaan in Oromahana qaataan in Axmaaraha qaataan inay quwad sida ku aadaan wadankana sii haystaan sidaas damacigooda uu egyahay. hase yeeshee dhibaatadii uu geysanayay Sanaawi iyo nac loo qabo TPLF in mar walba Axmaaradii Oromadu ay hadda baryahan ay codka ay dhinac isula badiyaan. marka isku soo duub waxaa la filayaa in hadda haddii la gaaro Ilaahay ka dhigo 2015 wax doorasho loogu yeeri doono haddayba gaadhaanba kolkaas ay wax badan ay soo kala bixi. waxaan rumaysnahay in reer galbeedku ay culays badan saareen inayna kala dareerin Tigraygu iyo qowmiyadaha kale Ethiopia sii jirtana la helo sidaas ay isku dayayaan laakiin ma muuqato. waa karmo hoosta ayaan iska wada cuni iswada xamanaya akhbaaro muhiimana aad ka heli aad iyo aadna dagaalka oo la foto in badan oo kamid ah waxaan balyeynaya qaar xasaasiyad ka qaba ama si khaldan ka aaminsan way jiraan oo propagandadan cadawga fidinayay sidaa ku go'aan qaatay. xogtii inta aan ka kooban iyo qaabka cadawgu u dhaqmayay waxaa kamid ahaa qaabka cadawgu u dhaqmo waxaa kamid ah isku dir shacabka oo haddana kala hay oo adigu maamul sidaasaa qorshihiisa ah way isbixin laadahay. damaaciga cadawga Soomaalida geeska Afrika kaleete sida Soomaaliya iyo oo ku jirta waqooyigu iyo Djibouti ba dad ku darto waxaa jiray inuu cadawgu kaliya haystay wayaano maamulayeen balse markii la sameeyay AMISOM Uganda ay u noqotay madax oo ay ku soo biirtay Burundi oo ay ku biirtay Kenya ku soo biirtay Djibouti waxay noqotay in lala gacan togleeyo awoodii Ethiopia ay noqotay mid xadidan askaraan la rabin oo beledweyne korkeeda ku rafaadsan oo janda gundishiya meelaha fadhida shacabkuna uu necab yahay oo waa shacabku waa Soomaaliguna uu is yaqaanaa shalay wixii waadanya ka dhacay waa la yaqaanaa dagaalkii weynaa ee xamar ka dhacay muddada 2 sano ah oo dagaalka xawligii ka socday Muqdisho iyo gumaadkii shacabka loo geystay oo taangii la dhacay BM-ka iyo diyaaradaha taasoo shacabka dhagahooda ka sii buuxi dhiigii wali waxaa daadsan oo moodaa roobku inuu mayrin ummadda Soomaaliyeed ka daatay marka iyadoo la necab yahay in ay taagan yihiin bas waxaad moodaa shacabka hadda inuu dhawaaday Soomaalida geeska Afrika nalan dariska nahay xoogaga Uganda iyo Kenya saasay moodaa Burundi ciidankeeduna ku wadahaan buu joogaa balse maadaama ay daris u tahay Kenya dadkan inay xagga u dhow yihiin bay iyo muuqataa ama dadka macnaha Soomaaliyeed baa inay xagga u dhow yihiin bay muuqataa. marka warbixintii oo kooban intaas aan la wixii aan weydiin lahaydeen waa sideeda way maasinteen.